السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلامي أصحابتينا كصاحبنا وهوذا مرلبات كسور دوادا إمر كواد إمر سدحات جنالكنا عنشورو أوفيشيال مانتو حصوب وقناي دريسكينا قاليقا هرقان كدريسكينا قريقا عنشورو أوفيشيال هرقان كان وحيسكو جران 3 دقيقة مانتا يا صوب وقناي waxaana ka codsanay inaan video ka qaadno YouTube-ka u dhigno inta daneynayso in maanta herqankaas inay soo quruxda badan ugu talaayo xijaabada qamiisyada dharka wax walba wuxuu ku yaalaa mandaqataas gaar ahaan madaraba ruus inta taqaano wixii faahfaahin waxa kala soo xiriir kartaa lambarada meesha ku qoran maasha Allah tabarakallah waxa kuugu soo dhaweynayaan wiilal Soomaaliyeed oo aad u farsamayaqaan sida waxa loo tala yaqaaniin sida xijaabooyinkan hadda arkoosin iyo cabaayadaha quruxda badan iyo wax walba meesha ka rabtaa ka helaysid insha Allah hadana gudaha sii galeena maadaama ay salaad casr ay tahay qaarkooda meesha ay ka maqan yihiin qaarkoodana ay qada wada doonteen ani wiilka isla joognay maadaama dhahay saaxiib meesha ina sii galaraba ma sii gali karaa ha sii galo dhahay hadana waxa ku sii qabanaya dhanka feerada waxyaabo badan meesha yaalo 4 xirqaan waxaana fadhiyaan 4 wiil oo Soomaaliyeed oo gacmo furan kuugu soo dhaweynayaan ka xaqdarayaan wax walba baahi ah qabto hadii aad rabto dhar in lagu yareeyo hadii aad rabto cabaayadaha qaarkood in half laga dhigo oo la jaro ama la gaabiyo maasha Allah wiilal fiican waaye aadina mahadsan yihiin horta wax walba Soomaali halka mid ku jeclaa waxa waaye way isgarab istaagaan way isku danayaan wax walbana isku qabtaan maasha Allah kareemooyinkaasna waa ka helaysaa kareemooyinka dumarka waaye maadaama akal ka seenin kareen hebel ma dhihi kari meesha waxa wada u suran xijaabo oo diyaarsan qafki rabo hadoo rabo xijaabo diyaarsan meesha oo ka helaya goonooyin oo diyaarsan oo ka helaya wax walba everything meesha oo ka helaya soo booqo xaruntan herqaanka hana ka maqnaanin gacmo furan oo lagu soo dhaweynaya sida hore in ku sheegay wiilal Soomaaliyeed oo farsamayaqooyin meesha joogan oo wax qabad leh oo maasha Allah meeshaas ku qabanaa waxa waaye dhanka oo dharka lagu jarjaro wiilal Soomaaliyeed aad u fiican sida qamiisyada hadda kor qamiis ayaa ka tooshtay insha Allah maraan soo duubi doona qamiisyada soo qurux badan yahay mar walba mar saddexaad ku soo dhawaada herqaankan wixii dadkii inta badan meelahaas joogo waxay codsadeen in lambaradooda asosiyo insha Allah waan soo sii doona guryahaas awjeedin waa taase imaaradaas insha Allah waan ugu qaban doona haantaas madow waa guriga canshuur official inta taqaano inta la guri canshuur ka soo deganaysa laabadkaas la soo xaleexanaysa meesha waa joogtaa madar ruus meeshana waxa uu sii dhabdahay meesha hilibka aan sheegay jiray meat time ودحيسا ما شاء الله horta maalmaha maxash waxa ku soo badanooyin reer qurba joog oo maanta rabaan inay ganacsi ka furaan dalka Masar ee caasimadda Qaahira maalmahana waxay noo camirooyin dhanka iyo mandaqataas waan soo dhaweynayna gacmo furan wax walba aragtina waan sameey doona insha Allah bidnillaahi kariim maama kale inta jirto insha Allah mar dhow meel kale furo doonto insha Allah nila soo ogeysi doona hadana tugtug ayaa sii raacay dhanka iyo waxa uu sii socdaa maxad jaamic hadana waxa waaye maxad jaamic sii galaya أنت محد جامع تقانو gudaha u sii galay dhanka iyo Soomaalida meesha u badan masaajidkaas masaajid Raxmaan Allah dhankaas dhanka qudaarta waaye meel badan ayaa idinku qaban doona insha Allah bidnillaahi kariim la socod wanaagsan hadoo YouTube kan subscribe ku ahan subscribe like share comment meeshaas sida horeen ku sheeg maxad jaamic waaye meel badan oo Soomaali furan yihiin ee meel badan masaare meesha tikiyada imaanay hadana meesha waxa imaad maasha Allah tabarakallah timaha ku jaranay timihi waa leeyahay geedaha saliimri maasha Allah timaha waxa ku jaranaysa intaas dhan waa $2 wallahi Masar muskin macila laha wax walba ka sameeysan kartaa wajigii naashnaasha ka sameeyay maasha Allah ababa tintil abuurna taas oo malaq marka inta ugu faraxsan darteeda iyo waxa waaye iyo asxaabteena nagu xiran janaalkan korna u qaada subscribe like share inta wajiga ka dhaxdana waxa waaye isdhina dad badan wax dhahayaan
واسك اوغا لكن انت ugu faraxsan kor Allah ka dhigo inta igu xunna waxa waaye ilaahay sharto iyo shaydaankoda Allah iga xijaabo dadkaas way isfahmi karaan marka waa kaasaan ninkaas timaha ay jaro iyo habeeye waa iska dhaqatimihi wax yar cadaan ay gaalninkii la hadlayo waxa dhaha cadaankan waxa maxaa waaye marnaa suuq xasbubsin amal u taagan yahay marka hadan waxa uu sii socdaa meel kale insha Allah meelahi waa isku soo kabkabay فيديو ونيل وداقي مال كلام تحسي آد دونا لدحيو جارديني وأنا أركي دونتي سو قروح بدن تاعي مركب مصر ما شاء الله تبارك الله تما حطك على سيء وعلى جري لبض $1 أسكت بحي وبقول جنيه وحلو الشيء تما هذا لو حبينايا وحول بلو حبينايا وملاقوا كاسا مركب أنت تقانو تقانا أنت يعني أقاننه ما شاء الله تبارك الله الصور لها waxa waa guusho soo dhowdahay cayaanka hal iska baabiyo hadana waa soo baxay dhanka iyo maqaayadana imaade maqaayada waxa la lahaa Xaaji Ibrahim cunto kala duwan ayaa ka helaysaa sida briiska baastada digaaga iyo wax walba ayaa ka helaysaa waana maxad gaamic meesha ku dhagan waa meel feere ah meeshan waxa jooga wiilkaas oo Soomaaliyeed waxyaabo badan dalab hadii maalinta aa qabto Qur'aan saar waa kala soo xiriir karta Xaaji Ibrahim maalintaas oo ku kala kicinaya waxyaabaha ku diyaarinaya hadana waxa soo aadnay dhanka iyo magaalada kaleenta Gardini araba ina soo aado Gardinina cusub tahay inta badan Soomaalida ma ka saayaan Masar sida hore idinku sheeg waxa waaye meel aad u balaaran waaye meel loo dalxiis leedahay meel loo bashaal leedahay igarkaas tugtuga ay wada jiray waxa taaganahay maya wiilkan Soomaaliga ay wadaayo walaalkii waaye meeshan hadana waxa waaye Gardini aad u waan tahay meel barakad loo dabaashto iyo meel dalxiis wiilal iyo waxa soo wada gabdho oo wadanka ku cusub oo ka imaaday dhanka iyo qurbaha sida jecla waxay ka imaadeen oo maleena dhanka iyo Australia waa meesha wada imaanay cabaara wada ka kaftana meesha ku shaaxeynay ku bashaalnay kadibna waxaan meesha Masar ka baran wallahi Masar waxa waa ma sha Allah sida laga sheegi jiray iyo hadda sayta farq weyn u dhaxeeyo marka Masar ma sha Allah meel waxa waaye aad u qurux badan waxa waaye weligii sida horeen ku sheegay waa tabi doona meel walba aad joogo oo soo dalxiis doona hadoo Ilaahay aaba yiraahdo meesha aad u weyn tahay oo qurux badan tahay waxa joogo dad walba ajaanib ah dadkaas Masarada dhaxda ka galay waa iska sheekaysanona qof kaamirada ay qabto waa waaye safiicna waxaan idinku tusilahay maadaama kaliya ahay ayga maqan tahay canshuur official amar dhowna xaqiiqa ay ku soo jahan tahay hada dhankan kale waxa imaanay FAB iska fadhiista iska leersado meesha waxay ku qurux badan tahay lamaan qurux badan bisinka aabahay xabadeeda ayga maqan kaliya socod la ahay ciil ahay marka meesha ku kaftanay shaaxa iska dalbanay cabaara wada joognay meesha meel qurux badan waaye hadana waa soo baxnay dhanka iyo waxa soo aadnay xaafadeena waa iska laabra waxa madow ay u noqotay xaafadeeda si aad raba asxaabteena insha Allah waxaan idin codsanayaa ina janaalka kor noqotaan subscribe like share comment ina noo dhaxdan tugtugaas aska saaranahay waxa dhahay madow maadaama ay tahay iska laabanaya wixii faahfaahin wax naga soo xiriir kartaa raqamadana telefoonka canshuur official anigoo ah malaaq hadii aad u baahan tahay wax walba ina ka jahil bixinayna insha Allah biidnillah kareem fiidiyoga igu soo yibata asxaabta qaalida inta muraad leh muraadkooda Allah sahlo inta muraadkooda